السلام عليكم ummadda Soomaaliya waan islaamay meel kasta ay joogto waa Korneyl Farxaan Abshir Maxamuud Siyaad codkan waxaan u duubayaa waxaan hambalyo iyo salaan iyo bogaadin u dirayaa dhalinyarada SYL oo 13 xorriyadan aan ku dhaaloonayna maanta Jamhuuriyadda Soomaaliya calanka buluuga dusheena suran u dagaalamay aad iyo aad baan u salaam baaxadood baan u dirayaa waxaan kaloo rabaa inaan ka hadlo mashaariicda dhammaan ka socota gobolada Puntland waa ku faraxsanahay mashaariicdaas madaxweynahan waa u mahadcelinaya laakiin waxaan rabaa mashaariicda ka socota Garowe Boosaaso Qardho iyo kulli degmooyinka dhan gobolada dhan iyo Raas Casayr in Gaalkacyo laga fuliyo madaxweynuhu waa ogtahay Gaalkacyo waa magaaladii halganka waa wadnihii Soomaaliya waa wadnihii Puntland qofkana haddii wadnaha laga hayo ma socon karo Soomaaliya meesha kaliya wadnaha waxa weeye waa Gaalkacyo waa magaaladii halganka waa bartamii Soomaaliya marka dagaalada tuulooyinka u dhow ka dhacayana waxaan ku baaqi lahaa degdeg in loo joojiyo beelaha sida hadda beesha Saacad iyo beesha Lalkasa iyo baryahan dagaalkooda uu daba dheeraaday ismada daarood iyo ismada Soomaaliya dhan ay soo dhex galaan oo joojiyaan iyo dowladda laftigeeda inay soo dhex gasho cidda joojin ka dhawa waxaan kaloo iyadana dhihi lahaa Islaan Bashiir waa salaamaya islaanka shaqaaqo ka dhacday Balabusle iyo Boobi dhexdooda oo gobolka Mudug ka tirsan ayaan dhaweyd beesha aan kasoo jeeday beesha Cumar Maxamuud dhexdooda islaamku waa mahadsan yahay wuxuu yiri baraagihii meesha waa laga qodi karaa buu yiri maasha Allah islaamka waa salaamaya Allah cimrigiisa Allah dheereeyo islaamka iyo ismada halka joogana waxaan ku fariintaas waxaan u dirayaa annaga sii xoojinayaa waxaan dhihi lahaa mar dambe shaqaaqa dambe inaysan ka dhicin meeshaas ama dhulkaas Mayle iyo Boobi iyo dhulkaas oo dhan inaysan ka dhicin oo u dhaxeeya beelaha walaalaha Cumar Maxamuud dhexdooda inaysan ka dhicin iyo dagaal beeleedyada wadanka ka socda oo dhan hal la joojiyo madaxweynayaashii hore iyo ra'iisul soo farageliyeen dagaal beeleedyada hadda ka dhacaya meesha la dhaho gobolka Shabeellada Dhexe oo u dhaxeeya beesha Abgaal dhexdeeda iyadana hal la joojiyo dagaal beeleedyada wadanka oo dhan dhammaan jamhuuriyadda ka dhacaya oo dhan hal la joojiyo aniga wadanka xanuun badan baa iga haya ayaa wadanka mustaqbal baan ka leeyahay madaxweynaha inaan ugu sareeyo inaan noqdo rabaa marka degdeg ha loo joojiyo waxyaalaha dalka ka dhacaya ummadda Soomaaliya qeyri bashbashi barwaaqo urjeenaya waa anigu Korneyl Farxaan Abshir Maxamuud Siyaad oo dabad jooga assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh